بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نوحى السلام يوم الإسلام كودن يوم الصوماليين ملك سكون وشهيبة وحانك نقدر إياه تهنيد بشا بركيسين ودلتي لما أنت واحد لي هي رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم. waxaan jeclaystay galabta saddexaad ee bisha Ramadaan ah oo maalin sabti ah inaan marka xaweyd la wadaago halkan idinku soo gudbiyo wax kamida ahkaamta marka bisha Ramadaan. waxaynu qodobaynay sida tan qodobka ugu horeeyana wuxuu yahay maxaa loo yaqaanaa soonka. qodobka labaadna wuxuu yahay soonka xukunkiisu muxuu noqonayaa. qodobka ugu horeeya soonka waxa loo yaqaanaa waa qofku inuu ka fogaado waxyaabihii Ilaahay u baneeyay sida cuntadii iyo cabitaankii iyo galmadii xalaasha ahayd waqti kooban oo ka bilaamaya waaga labaad marka salaad subax la gaaro ilaa intii qorraxdu ka dhacayso, taasoo marka waxa weeye qofku uga jeedo in Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku caabudo, Ilaahayna markaa ugu dhowaado. marka xilligaa kooban ayaa qof wuxuu ka fogaanayaa waxyaabihii loo baneeyay xalaasha u ahaa, hadday noqoto cuntadii, hadday noqoto cabitaankii, hadday noqoto waxyaabo galmadii xalaasha ahayd oo qofka duu reer leeyahay in maalinkii Ramadaanta waxa weeye reerkiisa ka fogaado. waxyaabo kale ka fogaanaya waxaa kamid ah horeyna xaaraanta uga ahaa inuu dhammaan ka fogaanayo dunuubtii oo dhan iyo wax allaale wax kasta oo soonkiisa wax yeelaya ama jabinaya ama soonkiisa ka dhigaya marka ajar la'aan. qodobka labaad waxay tahay soonka xukunkiisa muxuu noqonayaa. soonku wuxuu noqonayaa waajib saaran qof kastoo muslim ah oo caqli leh oo qaangaadh ah oo awoodi karaya inuu soomo, qof markaas socdaal ku jirana aan ahayn. qofkaasina hadduu dumar yahay iyagana waxaa laga doonayaa inaanay noqon gabadh markaa umul ah ama uur leh ama gabadh ku jirta xilligeedii iyo caadadii gaarka ahayd ee marka bilaha ay u heli jirtay. soonkuna wuxuu ka mid yahay tiirarka ugu waaweyn ee marka diinta islaamka mid kamid ayuu yahay. si dhammaan wada garanay dhammaanteenba islaamnimadu waxay ku taagantahay 5 tiir oo waaweyn. marka soonku waa tiirka afraad ka mid ah 5 tiir islaamka. Allahna wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala: ya ayuha alladhina aamanu kutiba alaykumus siyaam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. ilaahay wuxuu idku faral yeelay korkiina soonka suu ilaahay ugu waajibiyay ummadihii ka horeeyay, waxaana leedku waajibiyay saad u xaqiijisaan oo aad u sugtaan oo aad la timaadaan cabsida ilaahay subxaanahu wa ta'ala, taasoo markaa ku imanaysa qofku inuu fuliyo wixii ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu faray kana fogaado wixii ilaahay subxaanahu wa ta'ala markaa u diiday oo markaanu la iman. qodobka saddexaad waxay tahay waxa weeyaan soonku waxa la noo sheegay ajar aad iyo aad u badan oo kala duwan oo siyaabo kala duwan lagu dhiirigeliyay. waxa ugu horeeya soonka waxa lagu helayaa damdhaaf Ilaahay agtiisa bisha Ramadaan oo dhan. qofka 3 maalmood sooma ee aan maalin dhaafin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu kaga dhaafayaa waxa weeye dunuubtii hore ee markaa uu shaqaystay ee ama uu galay. xadiiska Abu Hurayra wuxuu tilmaamay radiyallahu ta'ala anhu ee Bukhari soo saareen in marka nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam: man saama ramadaana iimaanan wa ihtisaaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. qofkii marka bisha Ramadaan sooma isagoo Ilaahayna rumaysan, Ilaahayna ajar kaga doonaya, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu dhaafaa dambiyadiisii hore. xadiiska labaadna wuxuu sheegay Abu Hurayra soo wariyay Muslim baan ku yaala wuxuu nabigu alayhi salaatu wasalaam: wa ramadaan ila ramadaan mukaffaratun lima baynahunna idha sunibat al-kaba'ir. ramadaan ila ramadaan laga gaarayo qofka dambigiisa waa lagu dhaafayaa hadduu ka fogaado waxay helay dambiyada waaweynaa oo dunuubtii yaraa ay marka laga dhaafaya. waxa kale marka lagu helayaa waxa weeyaan soonku wuxuu sabab yahay in marka jannada lagu galo. soonku wuxuu sabab yahay in marka jannada lagu galo ay marka soonku sabab yahay. wuxuu nabigu alayhi salaatu wasalaam: as-siyaamu junnatun yastajinnu biha al-'abdu min an-nar
soonku waa gaashaan wuxuu qofka ka celinayaa inuu naarti markaa u galo waxyaabaha lanoo sheegay waxaa ka mid ah bisha hadday timaado albaabada naxariistii jannadu way furan yihiin albaabada naartuna waa xidhan yihiin shayaadiintii waaweyneyd ee ummadda lumin jirtayna ummadda waa laga xidxidhaa oo waa laga nasiyaa si markay uga faa'iidaystaan khayrka iyo wanaagga bisha alle subxaanahu watacaala u dhex dhigay wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska abi hurayra uu soo warinayo ee ku yaalla saxiixa idaa jaa ramadaan futixat abwaabu aljanna wagulliqat abwaabu annaar wasufilat ashayaatiin haddii bisha ramadaan timaado waxaa la furaa albaabada naxariista iyo jannada waxaana la xidhaa albaabada naarta waxaana la xidxidhaa oo la silsiladeeyaa shayaadiinta waaweyn ee marka ummadda lumin jirtayna ummadda waa laga fadhiisiyaa waa laga nasiyaa oo waa laga xidxidhaa si marka ummadda muslimka oo dhani ay khayrkooda uga faa'iidaystaan waxaa kaloo ka mid ah wanaagga soonku leeyahay iyo barakada iyo khayrku leeyahay waxaa ka mid ah ajarka soonka lagu bixinayaa aad iyo aad iyo aad ayuu marka u labalaaban yahay una fara badan yahay ajar kooban oo tiradiisu koobantahay kuma urursanaa xadiiska abi hurayra ee muslim ku yaalla wuxuu tilmaamayey in nebiga calayhi salaatu wasalaam uu xagga alle ka soo wariyey oo ilaahay uu yidhi kullu camali ibni aadam lahu ila asawm fa inahu lii wa ana ajzii bih alle subxaanahu watacaala wuxuu yidhi cibaado kasta oo qofku uu sameeyo isaga ayaa iska leh bimacnaa ajar kooban ayuu ka helayaa lagu siinayaa laakiin soonkii bishii ramadaan aniga ayaa iska leh oo ku abaalmarinaya riwaayad kale waxay sheegaysay walxasanatu bicashri amhaaliha waxa weye halka xasano 10 laab u dhigmaysaa oo wuxuu noqonaya soonku mid ajarkiisu labalaaban yahay fayudaacaf ilaa 700 ضعفin ilaa adcaafin kaiira waxa ilaahay gaadhsiiyaa 700 laab iyo ka badanba marka soonku wuxuu ka mid yahay cibaadooyinka ajar maxduuda ama ajar kooban lahayn ee marka ajarkiisu aad iyo aad u fara badan yahay loona lama kala laabay oo marka xawey ajarkiisu aad u fara badan yahay wuxuu alle leeyahay subxaanahu watacaala yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli qofkaasi wuxuu ka tegey cuntadiisii iyo cabitaankiisii iyo galmadiisii aniga dartay ay marka uga tegey marka soonku ajar aad u fara badan labalaaban oo aan koobnayn xad aan lahayn ayaa marka weeyaan ee qofku marka uu ku helayaa waxa kaloo ka mid ah waxyaabaha soonka lagu helayo 8 albaab ee jiradu leedahay waxaa ka mid ah albaab loo yaqaano arrayaan waxaana ka gelaya oo kaliya dadkii marka soomi jiray cid kale oo ayaga ahna ma gelayso marka dadka sooma ee sidaa ku dhintaa waxa weeye jannada waxay iska leeyihiin albaab u gaar ah oo gooniya oo ilaahay subxaanahu watacaala ku sharfay dadkii marka soomi jiray soonkii faralka ahaa iyo soonkii markaa sunnayaasha ahba nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ina fi ljannati baaban yuqaal lahu rayaan yadkhulu minhu saa'imuun jannada waxaa ku yaala albaab rayaan la yidhaahdo waxa weeye waxaa ka gelaya oo keliya dadkii soomi jiray haddii marka iyagu ay galaanna cid dambo ka soo dabagelaysa haba yaraatee markaa ma jirto marka waxa weeyaan dadka soomi jiray adduunyada markii ay joogeen ee soonka faralka aan maalina dhaafin sanadna aanu dhaafin waxa weeye sunnayaashana waxay awoodi kari ka raacin jireen waxay gelayaan oo ay janno ka geli doonaan waxa weeye albaab u gaar ah oo ilaahay subxaanahu watacaala ugu talagalay soonka ajarkiisu aad iyo aad ay marka u fara badan yahay khayraadkiisuna aad iyo aad u fara badan yihiin waxaana ka mid ah in nabiga calayhi salaatu wasallam noo sheegay uu yidhi waxa weeye habeenkii ugu dambeeya bisha ramadaan marka ay baxdo ilaahay subxaanahu watacaala waa hadlaa alla wuxuu yidhaahdaa cid allaale cid kastoo soontay oo aanay maalin ay dhaafin waxa weye naar waan ka xoreeyey marka waxa weeyaan habeen kasta oo bisha ramadaan ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala cid buu naarta ka xoreeyaa waa ciddii maalinkiina soontay habeenkiina ka faa'iidaysatay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ugu talagalay habeen kastoo ka mid a bisha ramadaan in ilaahay naarta ka xoreeyo marka qodobkaasina intaasaynu ka gudbaynaa bisha ramadaan
waxay ku sugnaataa aragti la arko dayaxa marka bisha Ramadaan haddii la arki waayana waxa la dhameystirayaa bisha marka ka horeysa Shacbaan ay sidoo kale buuxinaya waxaana lagu ciidayaa aragtida dayaxa bisha Shawaal la arko ay marka lagu ciidayaa haddii la arki waayana sidoo marka bisha Ramadaan ay marka la dhameystirayaa bisha Ramadaan aragti mooyaane xisaabaad iyo wax kale kuma sugnaato sida marka nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam uu yiri suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi waxaad ku soontaan aragtida bisha waxaana ku ciidaan aragtida bisha haddii marka waxa weeye ladinka qariyo oo waxa weeye dayaxi la arki waayo oo daruuri wax la mid qarisana waxa weeye bisha marka buuxiya fa akmilu ciddata 30 shacbaana waxa weeye saddex shacbaan marka dhameystiro buuxiya marka bisha soo gasho iyo marka baxaysa labaduba waxa weeyaan aragtiba marka lagu soomaya aragtiba lagu ciidaya marka bisha Ramadaan dhalanaysana hal qof oo kaliya ayaa aragtida ku filan marka si la ciidayo laba qof ugu yaraan ayaa marka ku filan aragtida marka bisha la arkayo ujeedada loo sharciyeeyay soonka bisha Ramadaan dhowr qodob baan ka dustaagnaa oo igu horeyso maadaama dadku dhamaan yihiin adoomo Ilaahay subhanahu wa ta'ala iska leeyahay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu doono isagu farayo wixii Allah rabana subhanahu wa ta'ala ka reebayo marka soonka la yimaado waxa lagu xaqiijinayaa dadku markay adoomo Ilaahay yihiin waxa kale lagu xaqiijinayaa alla ka cabsiga leeno sheegay ayaa marka lagu gaadhaya oo marka lagu xaqiijinaya waxa kale kamid ah sababaha soonka loo waajibiyay ama loo sharciyeeyay waxa weeyaan qofka sooman soonkiisu wax ka soo gaariyo dareemaya waxa weeye rafaad iyo baahi xilliyo gaar joogta waxaana jirta dad walaaladeen muslimiin ah oo iyagu baahidaasi joogta u tahay iyo rafaadka iyo gaajadaasi joogta u tahay oo Ilaahay mooyana cid kale wax siisaan wax tartaabay yarataani jirin marka qofkii soomana markuu gaajiyo haraadu dareemo waxa loo baahan yahay inuu waxa weeyaan walaaladiisa marka baahan inuu caawiyo oo wax u taro oo u gurmado oo iskarab taago oo waxa weeye ka qayb qaato si marka uu soomi lahaayeen iyo sida uu afur lahaayeen iyo si marka uu suxuran lahaayeen maadaama isagu baahida iyo gaajada xilliga kooban u dareemay waxa weeyaan ay jiraan dad walaaladiis ah oo mar walba gaajada iyo rafaadkii baahida ku jira ayaa waxa lagu talagalay qofkii soomanaa bisha Ramadaan inuu ka qayb qaato waxa weeye dadka baahan soo baahi tiri lahaa oo caawin lahaa waana xilliga ay marka ugu fiican tahay ama ugu ajarka badan tahay sadaqaadka iyo waxtarka marka xilliga la bixiyo waxa kale oo kamid ah sababaha soonka loo sharciyay waxa kamid ah soonka laftiisu waa caafimaad soonka laftiisu waa caafimaad oo caafimaadku qofku wuxuu ku jiraa inuu marka uu yareysto cuntada iyo cabitaanka oo aanu marka farbasan markasta qofku cuntada iyo cabitaanku farbasado waa markasta oo xanuunada ay ku bataan oo marka uu nugul yahay markii cilmi baaris la sameeyayna waxyaabihii la ogaaday waxa kamid ah soonku inuu kamid yahay waxyaabaha qofka caafimaadkiisa ilaaliya gaar ahaan aad iyo aad u adkeeyo u xoojiya waxa weeyaan difaaca jirka ayuu aad soonku adkeeyaa oo waxa weeye qofku waxa weeye inaan u dhaganuglaan inuu si fudud ay marka xanuunada kala duwan ugu dhacaan markuu xidhay soonku qayb weyn buu ka yahay adkeynta difaaca jirka la adkeynayo sida qofka waxa weeye si fudud aan marka ugu dhicin waxa weeye xanuunada kala duwan ee marka jira waxyaabaha soonka jabiya way farabadan yihiin waxa ugu horeeya cuntadii qofku maalin cad oo bareer ah inuu waxan cuno waxan cabo isagoo marka garanaya inuu cunitaanka iyo cabitaanku xaraan yihiin una bareeray qofkii isagoo sooman hadduu islaa wax cuno ama cabo oo isagoo marka islowsan isaga marka waa laga cafiyay oo marka waa laga dhaafay xadiisku wuxuu tilmaamay nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri qofkii wax cuno ama wax caba isagoo marka islowsan waxa weeyaan Ilaahay ba quudiyo waraabiyay marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa qofku hadduu ogaan bareed ah cid ku khasabtaa yaraatay aanay jirin oo waxana cuno waxana uu cabo waxa weeye soonkiisaas uu jabay waxa kale oo kamid ah galmadii la diiday ayaa markaa kamid ah oo waxa weeye ninku soo garanaya inuu xaaskiisa inuu u tago ay xaraan tahay xaaska lafteeduna og tahay in galma sameeyay xaraan ay tahay
haddii isu tagaan iyagoo markaa labadoodaba og inay galmadu maalinkaas ramadaanta maalinkeedii xaaraan tahay waxa weeye soonkoodii wuu jabay dembi aad iyo aad u weyn ayay marka ku dhaceen oo maalinka xurmadiisii iyo sharaftiisii oo ay meel ka dhaceen waxyaabaha jabiya waxaa ka mid ah soonka waxa loo yaqaano caadada iyo markaa iyo dhiigga dhalmada gabadhii oo soomanayd ayay dhiigga caadadiiba heshay ama gabadhii oo soomanayd ayay markaa umushay marka soonkoodii markaa waa jabay xadiisku wuxuu noo tilmaamay nabigu sal alla alay slam yidhi alaysat ilmar'atu idaa xaadat lam tusalli walam tasum xadiiska mucaad wuxuu tilmaamayey in marka nabigu yihi sal alla alay wasalam war gabadhu miyaanay ahayn haddii markaa caado hesho midaan salaad lagu lahayn soonna lagu lahayn waxaa kaloo ka mid a waxyaaba qofka soon ka jabiya wax kasta oo jirhkiisa meel bannaan oo jirhka u furan ka gala oo waxa weeyaan ha noqoto waxyaabaha loo yaqaano irbadda ama sayloonka oo marka jirhka iyadoo nafaqo siinaysa waxyaabaha cuntada iyo cabitaanka waxaa la mid a haddii marka waxa weeyaan qofkii xanuunsanayey oo marka waxa weeyaan uu sayloonka lagu rakibo iyadoo marka waxa weeyaan nafaqo iyo awood jirhkiisa siinaysa isagoo sooman soonkiisi markaa wuu jabay soonkiisii waa uu jabay waxyaabaha laga soo reebi waxaa ka mid a cuntada iyo cabitaanka qofku isagoo sooman hadduu marka iraab isticmaalo daawooyin ah oo sanaan qofkii macaan qaba ama dhirka qabay isagoo sooman ay iraabkii lagu muday soonkiisu markaa ma jabayo soonkiisu wuu jamara jabayo waxaa loo baahan qofku inuu ka fogaado waxa weeyaan waxyaabaha soonkiisa wax yeelaya ama soonku waqtigiis ka luminaya soonkuna maalmo kooban soo rabbi tabaaraka wa tacaala leeyahay ayaaman macduudaat qofka waxa loo baahan yahay inuu soonkiisa ka faa'iidaysto wax allaale wax kastoo anfacaya oo waxa weeye wax kastoo aakhiro u dhoweynaya iyo wax kastoo marka soonkiisa ajarkiisa badanaya oo ay ugu horeyso in marka uu la yimaado salaadihii shanta ahaa iyo jumcudii la yimaado iyo sunnayaashood markaa u raaciyo oo ay ka mid tahay soonkiisa inuu ilaashado waxa weeyaan aanu ku mashquulin waxyaabaha lagu mashquulo bisha ramadaan haddii noqoto musalsalaad haddii noqoto giin la ciyaaro haddii noqoto laadhu la ciyaaro haddii noqoto turub la ciyaaro waxyaabahaasoo dhani waxyaabaha qofka soonkiisa mashquulinaya kana dhigaya inuu qofka soonkiisu noqdo soon bila ajar ah nabiguna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam man lam yadac qowla azuuri walcamala bihi waljahla falaysa lilahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah qofka hadduu iska din waayo hadalka xun iyo ficilka xun iyo dhaqamada xun inta ku jiro soonkiisa ilaahay wax baahi uga qaba ma jirto inuu marka cuntadiisa iyo cabitaankiisa ilahay uga tegayo xadiis labaad wuxuu tilmaamayey in marka nabigu leeyahay sal alla alay wasalam ruba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila aljuuc walcadash fara badana qof sooman soonkiisana wax gaajiya haraad mooyaane wax kale ka dheefayn wa ruba qaa'imin laysa lahu fara badana qof taagan oo haddana waxa weeye soo jeedkiisa waxa weeye qiyaamkiisa ka helaynin ila sahr soo jeedun mooyaane marka waxaa loo baahan yahay inaad soonkaaga ilaashato maalmaha sooman tahay jaabir waxa laga soo wariyay radi allahu tacala inuu yidhi waxa weeye haddaad soonto ha soomo carabkaaga iyo waxa weeyaan iyo jirhkaaguba iyo aragaagu ka soomo wax allaale wixii xumaan ah ha ka soomo dadka dhibaatooyintooda jaarkoodana faraha laga qaado qofku markuu sooman yahay iyo markuu afran yahay waa inaan isku mid noqon oo ay ku kala duwanaato maalinka sooman tahay iyo maalinka marka afran tahay waxaan inaga baahay dhammaanteen inaynu ku dadaalno acmaasha saalixee faraha badan leh oo ay ka mid tahay qur-aanku aad loo akhriyo loo joogteeyo waayo bishuna bishii qur-aanka su-aal alle subxana wa tacala leeyahay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaas bayinaati min alhuda waalfurqaan waa bishii ilahay qur-aanka soo dejiyey qur-aanku dhammaystiran waa bishii rabbi tabaaraka wa tacala soo dejiyey waxaa kaloo loo baahan yahay in markaa waxa weeye salaatuleylka ama taraawiixda marka la tukado oo qofka aanay ka tegin waxa weeyaan salaada uu tukanayo waxa weeye soonka bisha ramadaan habeenkiisi maalinkiisa isku mid sida maalinka camal laga doonayo ayaa habeenkiisa camal laga doonaya wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam man qaama ramadaana iimaana waxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbihi qofka marka bisha ramadaan waxa weeye istaaga oo salaatuleylkii taraawiixda tukada dembigiisa hore waa lagu dhaafaya waxaa kaloo ka mid ah inuu qofku markaa waxuu farabadsado inuu sadaqada wax bixiyo
oo waxa weeye cid allaale cid caawin karayo bisha Ramadaan ka qayb qaato sadaqadu mar walba la faray bisha Ramadaan aad iyo aad ayayna si gaar ah faray oo loo sii xoojiyay oo waxa weeyaan laynagu adkeeyay in markaa wax bixino nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu ahaa sanadkoo dhan mid wax bixiya oo wax sadaqadaysta bisha Ramadaan baan ugu sadaqa badnaa oo aad iyo aad wax bixin jiray waxa ku nabiga la weydiiyay kaleey salaatu salaam waxa weeyaan sadaqadteeba ugu fadli badan ugu khayr badan wuxuu waa sadaqatu fi Ramadaan bisha Ramadaan wax la bixiyo ayaa markaa ugu khayr badan waxa kale oo kamida in marka qofka daawadi karayo in marka weeyo afriyo marka cid sooman oo afriyo daawadi karayo waa in marka afriya ama qof ha noqdo ama umad lama ka noqoto wuxuu nabiga kaleey salaatu salaam qofkii marka qof sooman afriya ajarkiisa in laga loo qoraya iyadoo kii sooman ajarkiisa aan waxba laga yareynin waxa kale oo kamida waxyaabaha qofka inuu dadaalo baahan yahay inuu ducada farabadiyo ducada farabadiyo ayaa kamida wuxuu nabiga noo sheegay salaatu salaam saddex qolo ducada lama celiyo waxa kamida qofkii soomanaa ducadiisa lama celiyo riwaayadkan waxa sheegaysay waxa weeyaan qofka sooman markuu afurayo afurada in yar ka hor waxa weeyaan ducada Ilaahay bariyaa in marka celinaysa ma jirto Ilaahay baan ka barnaa subhanahu wa ta'ala bisha Ramadaan ku jirno in waxa weey Allah subhanahu wa aqbalo acmaasha wanaagsan iyo khayrkeeda wanaageeda alla marka uu naga dhigo marka bishana ku ka faa'iideysta bilowgeeda iyo dhexdeeda iyo dhamaadkeeda intaas ku soo koobaya wallahu subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh